waxa habeennimadii xalay ka daay guud ahaanba gobolka Gabiley rooba mihigaan ah kuwaasi oo geystay khasaare naf iyo maal iskugu jirta deegaanada buuraleyda gobolka Gabiley ee dhaca xeebaha waqooyiga ayaa la soo sheegayaa inay ku dhinteen 2 qof iyada oo aan la xaqiijin dhimashada halkaasi waxa ay xoolihii kaga bixeen roobkii habeennimadii xalay ka daay gobolka Gabiley qoysas tanyara waxaana ay dadweynaha muslimiinta iyo xukuumadda garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ay ka codsadeen in la soo gaaro gurmad degdeg ah waxa guryahoodii ka qaxay kumanaan ka mid ah qoysaska degan buuraleyda gobolka Gabiley ee dhaca waqooyiga xeebaha gobolkaasi intii aan ku jirnay kuurgalka xaaladda dadka ay roobabkaasi saameeyeen ayaa waxaan la kulanay qoys tanyara oo degan deegaanka dhagaxa galaalan ee gobolka Gabiley kuwaasoo ay ka baxeen 40 neef oo xoolihii ay dhaqan jireen waxaana ay dadweynaha muslimiinta iyo xukuumadda garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ay ka codsadeen in la soo gaaro gurmad degdeg ah waxaana yiraahdeen dadkani waxay ka soo guureen meesha la galoolay oo Gabiley dhagaxa xigta xubinta koowaad galoolay dabada tahay inta jiida roob ma lahayn moogta inta roob ku guday dabada daaqsinahan baa u yimaadeen halkan daaqsinahan ha u yimaadeen way iska wanaagsanaa dadkuna way martigeliyeen beeraha way la daaqayeen moogta waxa deeba saayib waxa dhacay moogta yaa duufaantaas dhacday dunyada waa la iska helay laakiin waxay dadka u xoolaha waxaan waxa yaa dad yara ayay haayeen adduunyadooduna waxaan ahayd dawladda markaa waxaan ku codsanaa khaas ahaan gobolka yaa in la caawiyo dadka oo gurmad loo sameeyo ayaanu ka codsanaa waxaan sheegaynaa xukuumadda oo mas'uuliyiinta gobolka in xalay toolay ka dhacday masiibo aad u weyn oo uu keenay roobkii xalay daay oo ay xoolo badan ku nafbaxeen nasiib wanaag dad baan ku dhimanin laakiin xoolo aad u tiro badan ayaa naga dhintay ugu yaraan 60 neef ayaa ku dhintay dadka intoodii badnay oo soo badbaadinay labadii habeenimo meelahaas aan nimid koodii barkii habeenimo ayaa ka soo baxnay suuqa waxaanu nimidnay markaa meelaha labadii oo waxala roobkooda ayaan nimidnay aad nasiib wanaag waan soo badbaadinay dadka waxaanu u keenay bustayaal iyo waxay cabaan iyo waxay cunaan baan u keenay annaga xalay tolo suuqan ka soo gurmanay dadkan waxay ka soo guureen meel u jirta Gabiley 7 kilomitir xaggana waxay u yimaadeen daaqsin may wadan waxay roobka ka galaan markaas waxa la kulantay roobkii daayo dabaylo fara badan wata iyo duufaan wata waxay qarka u gaadheen in ay dhintaan horta bedel khayr qaba marka labaad mas'uuliyadda waxaan ka codsanaynaa in waxa la wixii taakulaay dadka ku caawin karaan ay la soo gaadho ginay nolol maalmeedkii uu ku tiirsanaa xoolaha nool xoolihiina way ka baxeen 90% way ka baxeen meesha kaliya ta waxa ku soo haray dadkii waxaan meesha ka qaadanaa waxa weey dadkii oo ku celinay guryaha ay ka yimaadeen wax abaaro wadamay jireen xooluhu ku filan bay haysteen laakiin kaliya ta waxa ku habsaday masiibo dabiici tan la doonayo in laga caawiyana waa taasi xalay abaaro waxaan nimidnay labadii barkii aad baan ugu mahadnaqayaa xogeeyada dawladda hoose oo nasiyay baawurkaan ku nimidnay iyo xildhibaan Mustafa Sayid Abukar oo isna ilaa saakana la joogay xalay dhaxantii iyo roobkiina halkan wala dib jiray oo soo qaaday raashin furin iyo shaahba isna inta la soo qaaday oo nala badbaadiyay dadka Mustafa Sayid Abukar aad baan ugu mahadnaqaynaa xogeeyada dawladda hoose isku soo wada duub oo roobkani ayaa ahaa mid 3 cisho ka daayay gobolka Gabiley kaasi oo geystay khasaare ba'an waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin TV-ga SBS gobolka Gabiley